بسم الله الرحمن الرحيم لابكنا شناد waxaan kaga hadlaynaa EIGRP baan configure garanaynaa network-gan aad ka balaaran waa 3 network ka bacdi waxa la inaga rabaa network-geenaasi inaynu sameeyno inaynu reachable ka wada dhigno from BC1 to BC3 abaan abnayna noqdo routing protocols kana inaan fiirino routing protocol kan isticmaalayna waa RIP imika sorry waa EIGRP routing protocols kii hore RIP markaan isticmaalaynay waxaan wax ka bedelay kow fast internet dalku ahaan jiray waxaan kan serial baan isticmaalaynaa network cusubna waan ku soo darnay oo router laba network leh ayaan ku soo darnay kaas marka network-geedu ka balaadhanaya marka haddaan IP addressing-ka eegno xagan network xagani wuxuu noqonayaa xagan wuxuu noo noqonayaa 192.168.1.0 interface-ka router-ka waa 100 computer-kan halka u dambaysa waa 10 isagana waa 10 halkan iga qaad isaga kan iga koobiye 10 baa u dambaysa okay network labadoodan u dhaxeeya router waxa weeyaan 10.1.1.0 router-ka hore waa 1 portigiisa halkaas waa noqonaysa ka labaadna 2 bay noqonaysaa waa /24 dhinaca labada router 3 iyo router 2 waxa u dhaxeeya iyagana 20.1.1.0 kan hore uu noqonayo markaasi sida caadada inoo ahayd .1 kan dambana uu noqonayo .20 isaguna inoo noqonayo isaguna 20 ayuu sorry 2 buu inoo noqonaya 2 buu inoo noqonaya marka farqigaas u dhaxeeya network-gaas kordhinay xagga LAN-ka BC2-ga isagana waa 2 192.168.2.0 deetana interface-gaasi waa 100 kana waa 10 sidaas la mid ah isagana turiguna waa sida labadan kale aynu sameeyay kale marka ugu horeyn router-kan ku horeynaya 10 sano inooga dheeraan waan soo koobaya kan router 1 markaan joogo waxa la inooga baahay number 1 waxa leenahay show IP interface brief hadaa iraado wixii ku jiro tusaya laakiin configuration-ka oo dhan waan bedelay hadda configuration cusub baan u guuray deetana waxa leenahay interface serial 1/0 interface-kaasi waa serial awal fast internet binaha imika serial deetana waa IP address 19 IP address 10.1.1.1 255.255.255 markaan /24 ka eegno okay kaasi overlapped isla sameynayaan buu nagu yidhi already kaasa mid kale ayuu awal halkaas saarnaan jiray hal mid aan sameeyo interface-ka aan galo interface fast internet 0/0 gaan galo oo ka hoos ah fast internet-ka xagan aan raray IP address inaad fast internet-yadaada interface-yadaada inaad taqaanid baa muhiima .100 255.255.255.0 then okay isna kaasu dhexgalayaa buu yidhi okay kan aan idhaahdo no IP address fast ka exit aan idhaahdo interface fast internet 2/0 isagana aan idhaahdo no IP address hadda waxaan joogaa fast internet 0/0 ga IP address-kii kor u baadhay oo soo celiyay soo qabsanaya no shutdown bulan exit hadda serial-kaas aan gelayaa serial-ka xaggan uga yeeri karaa ab arrow intaan u raadiyo okay gaadhi waaye interface serial 1/0 then IP address 10.1 okay 10.1.1.1 then subnet mask-kiisu waa 255.255.255.0 then waxaan leeyahay no shutdown exit intaasaan sameeyey marka haddaan idhaahdo do waxaan idhi global configuration mode-ka haddaan joogo ama interface mode-ka haddaan joogo do baan ka horreysiinaya laakiin haddaan privilege mode-ka joogo do kama horreysiinayo do show IP interface brief ayaan ku eegaynaa marka waxaan arkaynaa serial interface-kii hore mee waa kan serial interface-ku waa 1 u dambeeya waa up okay ka down-ka noqday waa kee waa serial interface-kan filayaa waynu eegi doonaa isaga waa dhinacii kala maqan kaasi isaguna waa fast internet 2/0 administratively manually yes weeyaan okay kan isaga IP address-kan siiyo waa khalad kani wuxuu qaataa kani wuxuu wataa fast internet 0 weeyaan halka router-ka ka horeysa fiiriya fast internet 0 laba ay kala doormaya inaan intaan kan ka delete gareeyo
dib interface-ka usoo geliyo oon idhaahdo tuuga igu xidh kaasa interface-kiisi imika haddaan eega routerkayga waxaan arkayaa inuu ab noqon doono yar ka bacdi inuu ab noqon doono show okay do show ab interface brief ab arowna waan ka soo celin karnaa marka waxaan arkaynaa inuu manually ab yahay kaasina inuu ab yahay okay aan ka baxo oon taga router 2gu saddex interface baa ku xidhan saddex interface oo kala duwan bay iga baahan inay address-ka siiyo kow waa kaa serial interface-kiisa fiiriya serial interface-kiisu waa 1/0 kaa ka hooseeyana waa fast internet 2/0 kaa ku xigana isagana waxa weeyaan serial interface 1/1 saddexdaaba inaan interface-yadiisa siiyo iga baahanya ugu horeyn horta maxaa meesha igu jira ayaa muhiima show ab interface brief inaan ogaado maxaa meesha ku jira wii configure garaysan yahay kaasumaan bedelayaa oo serial interface-ka 1ka usoo raraya marka waxaa leeyahay config terminal interface fast internet 0/0 no ip address isaga ip address-kaasaan ka tuuraya waayo ip address-kaasi xaggana ku isticmaali doona interface serial 1/0 baan ip address-ka ku isticmaalaya awal saarnaa boortigaasi .255.255.255.0 then no shutdown exit interface kan wii configure garaysay uma baahni kaasaan configure garaynaya serial 1/1 baa la idhaahdaa ka ip address-kiisu wuxuu ka bilaabmayaa 20 inta kale waa isku mid 20.1.1.1 ayaan ka dhigaya waa 20.1.1.1 then 255.255.255.0 no shutdown then exit ayaan sii odhanaya intaa markaa sameeyo router 3-gaygaan tegayaa router number 3 ayaan tegay isagana waxaan odhanayaa config terminal interface-ka ay sheega muxuu ahaa serial 1/1 serial 1/1 then ip address 20.1.1.2 255.255.255.0 then no shutdown exit interface-kan isagana soo gal interface-kan isna fast internet-kiisu waxa weeyaan fast internet-ku ka qayb qaadan maayo communication-ka laakiin hadday ciladi kaaga timaado ood ip address qaldan siisid waxaad arkaysaa inaan kuu shaqeynin marka interface fast internet 0/0 then ip address 192.168.3.100 then 255.255.255.0 then no shutdown exit okay kaana waa dhameeyey hadda markaasi communication ma dhici karaa weeya su-aashu haddaan ay bing halkan ka sameeyo raba halkaa inuu gaadho maya ma gaadhi karo haddaan kan kaa soo bingarayo halkan soo gaadha dhahdo configuration hore igu jiray laakiin ma shaqeynayo inuu shaqeeyo maaha tusaale show ip interface show ip root aan idhaahdo show ip root configuration-ka hore igu jiray ee ribka waan ka saarayna config terminal waxaan leenahay router rib no router rib ayaanu leenahay dhan command-kaasaan soo koobiyeyna command saas ma loo helayd garaya kaagama baahna inaad koobiyeysid deetana kanaan imanaynaa no rib deetana do show ip root imika haddaan idhaahdo routerkii uu ka baxaya